Assalaamu calaykum asxaabta markale kusoo dhawaada Sacdiyo cunto karis maanta insha Allah waxaan sameyn doonaa kackac marka weelka waxaa ku shuba doontaa 2 koob bur koobkana noocaas isticmaalay koobka shaaha lagu cabo waaye kadib hal qaado yariis oo baking powder ku darsaday kadib koob halfkiisa oo sokor koobkana noocaas isticmaalaa koob halfkiisa sokor kadib wax yar oo carfin leh bas oo heel shiidan ayaa ku darsaday adiga laakiin hadda rabin waa iska dhaafi kartaa laakiin wax yar heel ayaa ku daray kadib wax yar isku qasqasa kadibna insha Allah waxa ku dari doonaa 2 xabo oo ukun wax yar garaacana kadib waa ku daraa kadib koob halfkiisa oo subag ayaa ku darsaday subagan xoogaa yar waa qandac marka koob halfkiisa subag kadibna 3 qaado oo caano qandac qaandadana noocaan isticmaalay nooca cuntada lagu cuno waaye marka 3 qaado waaweyn oo maaragtay caano oo qandac insha Allah kadib intaana isku qasaysaa si fiican isku dhex gelinay insha Allah ilaa 5 daqiiqo qasay aniga laakiin 3 ilaa 5 daqiiqo waa qasi kartaa 5 daqiiqo si fiican isku dhex geliyay waa kaasa wax kale biyo ma u baahno intaas maaragtay si fiican isku la qasaysaa waa kana marka 5 daqiiqo qasay sidaan oo ii naqday burkii marka waxa sameynaa dabool saarana ilaa 10 daqiiqo meel dhiga doonaa dabool maradaas saartay kadib 10 minute kadib marka u soo naqdo insha Allah waxa sameynaa waa fidfidina marka meeshii aan ku fidin lahay ayaa soo diyaarsaday waxa sameynaa marka bur yar ku dadaadina meesha si oosan iiga dhigin burka aan kula fidinayo waaye marka mar walba muhiim waa inaad burka ku daadsato hadii kale meesha uu kaga dhigdhiga marka burkaas aan kula fidinaa insha Allah marka fidinaysidna looma baahno inuu qafiif saaid noqdo dhexdhexaad loo baahan yahay xoogaa yar inuu burburnaado loo baahan yahay marka waa idin tusaabo aniga sidoo aan ka dhigayo laakiin qafiif iyo ka naqanin intaas la iska ilaaliyo insha Allah waa kana aniga sidaas ka dhigay geesahana waa ka wada sima hadhow jaritaanka ma aragto sidoo iskula wada simo kow dheer u jara kadib waxa sameey doonaa insha Allah 4 gees u jari doonaa marka sidaas 4 geestas u jarana waxa sameynaa mindidaas dhexda ugu marmarina mindida ma ku wada jarooyi just afka la ka saaraya sidii oo naqshada oo u soo baxo oo noocaas u noqdo laakiin adiga naqshada artida ka dhigi kartaa laakiin kackaca badanaa sidana loo sameystaa sidaas oo ku qurxoon yahay laakiin adiga daartid naqshad ka duwan inaad u sameysatid waa u sameysan kartaa insha Allah marka inta aad jarjaraysidna ma aragtaa si diyaarsanaysid meel dhiganaysid waxa sameynaysaa dabka saliidtii saaranaysaa saliidii dabku si kululeysanaysaa insha Allah waatana ani saliidii way ii saarneeday inta ma aragtay fidinayo dhan marka haddana si fiican ay ugu kululaatay marka kackac soo fidiyay ayaa ku ridridaa kadibna marka uu noqdo xoogaa dahabi camal oo ma sha Allah si fiican iigu soo xoogaa ii gaduuto waa ka bixinaa marka sida marka ku noqdo isla markay ka bixi iyo san ka guwanin insha Allah asxaabta waxa rajeynaa inaad ka hesheen videogan hadda ka hesheen insha Allah like tahay hilmaamina sidoo kale hadda channelka ku cusub tahay insha Allah subscribe ka isaar si aad ula socotid wax walba aan soo dhigo insha Allah commentigan igu soo qora wixii dhiirigelin wixii fikradiina insha Allah waa idin la wadaagi doona anigana videoga xigana waan is arki doona insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.